bariga dhexe gobolka saliidda iyo colaadda laakiin hal su'aal ayaa taagan daawade maxay Mareykanku halkaas u joogaan sidee qorshahooda u saameeya adduunka oo dhan qaybta koowaad doorka Mareykanka United States ayaa muddo dheer kaalin weyn ka ciyaartay bariga dhexe iyadoo ilaalinaysa saaxiibadeeda la dagaalamaysa argagixisada isla markaana xakamaysa saameynta dowladaha kale sida Ruushka iyo Shiinaha. Mareykanku wuxuu isticmaalaa xeelado siyaasadeed, ciidan iyo dhaqaale si uu u ilaaliyo danihiisa gaar ahaan helitaanka saliidda muhiimka ah. qaybta labaad saliidda gobolka saliidda ayaa ah sababta ugu weyn ee Mareykanku u xiiseeyo gobolka wadamada sida Suudaan, Sacuudi Carabiya iyo Ciraaq waxay leeyihiin keyd saliid aad u badan daawade. Mareykanku wuxuu doonayaa inuu hubiyo in suuqa caalamiga ah xasilan yahay iyo in qiimaha saliidda aanu kor u kicin, taas oo saameyn ku yeelan karta dhaqaalaha adduunka. qaybta saddexaad saameynta siyaasadeed ee gobolka saameynta Mareykanka ee bariga dhexe waxay ka muuqataa dhinacyo badan daawade taageerida dowladaha saaxiibka ah, faragelinta siyaasadaha gudaha ee wadamada qaar, xoogagga militari ee gobolka ku sugaya. Tani waxay keentay xiisado siyaasadeed, isku dhacyo iyo mararka qaar colaado waaweyn oo caalami ah. qaybta afraad sababta Mareykanka u joogo gobolka uga bixi waayay Mareykanku kama baxayo bariga dhexe sababtoo ah danaha saliidda hubinta in suuqa caalamiga uu xasiloon yahay, xasilinta saaxiibada gobolka sida Israa'iil iyo Sacuudiga, difaaca ka dhanka cadowga caalamiga sida argagixisada iyo dowladaha la tartamaya gobolka bariga dhexe waa istiraatiijiyad muhiim ah oo Mareykanka u baahan yahay. taasina waa sababta joogitaankiisu u dheeryahay bariga dhexe waa xarun saliid siyaasadeed iyo militari. fahamka qorshaha Mareykanka waa furaha si aad u aragto sida colaadaha gobolka u saameeyaan adduunka oo dhan. haddii aad rabto daawade warbixino kale oo xiiso leh oo ku saabsan bariga dhexe ha ilaawin inaad subscribe lahdo janaalka oo aad like garayso muuqaalka. haddii aad ilaa dhamaadkan la soo gaarteen waxa waaye igula sali nabigeena sharaftada Maxamed sallallahu calayhi wasallam. Ramadaan Kariim tan iyo muuqaalka xiga insha Allah.